ما isweydiisayne maxaa bil'aadamka ka dhiga baahal ma ogtahay in dilaaga ugu naxariista daran uu noqon karo qof ehelkaaga ah ku soo dhawaada taariikhda madow dunida aan ku noolnahay waxaa ka jira sheekooyin aan lagu faanin magacyo aan la xusin iyo falal naxdin leh oo aan marnaba la iloobi karin dokumentarigan waxaan ku iftiiminayaa taariikh madow ma aha inaan dhibka weynayno balse waa inaan fahannaa sidaan uga hortegi lahayn dilayga taxanaha serial killer waa qof si ulakac ah u dila dad kala duwan waqtiyo kala fog isagoo aan ku jirin dagaal ama isdifaac dilka isaga uma aha shil waa go'aan qorshaysan iyo baahi maskaxeed oo qaldan cilmi nafsigu wuxuu muujinayaa in dilayaal badan ay soo mareen carruurnimo qalafsan tacdi ama dayac maskaxeed oo aan la daaweyn waa halka ay ku dhimato naxariista bini'aadamnimo kuna dhalato musiibada dilayga faldambiyeedku ma aha carro qofeed oo keliya waa dareen awood iyo xakamayn uu ku raadinayo naf kale mararka qaar dunidan waxaan ku aragnaa waxyaabo wuxuushnimo ah dhibanayaashu ma ahayn tirooyin lagu xuso warbaahinnada waxay ahaayeen dad lahaa qoysas riyooyin iyo nolol si xaqdarro ah lagu soo afjaray xanuunka ay ka tageen wuu ka miisaan daran yahay magacyada dilaayaasha dhibka geystay dilaaga mar walba lama dhalo marar badan waa la sameeyaa marka ay bulshadu ka aamusto tacdiga cadaaladdarrada iyo xanuunnada maskaxda ee qarsoon waxaa dhasha musiibo aan la xakamayn karin inaan nuxurka dembiga fahamno ma aha inaan u udurdaarno dilaaga fahamku waa furaha ka hortagga si aan u dhisno mustaqbal nabad ah waa inaan daryeelnaa bini'aadamnimada inta aysan ku lumin mugdiga